sheekh saa'ilkan wuxuu leeyahay xaaskaada wayse ma kaa jabisaa? waa su-aal in badan soona noqotay. war badan la oran maayo xaaskaadu salaada waa kaa jabisaa. haddaanay kaa jabin maxaad u guursata? ma maxramkaaba? waa zawjadaadii. ilaahay baa qur-aankiisa wuxuu nagu leeyahay haweenka haddaad taabataan weysaysta. waxaan laydinkaga diin dhigay wixii laga hadlahayay weeye. ruuxu hadduu madhabi yahay oo uu leeyahay aniga madhabkaygu aayaddaas macnaheedu si kaloo u fasirahaya oo ay suuragal tahay madhabtiisu meeshaasna inay ka fududdahay meeshaana ka adag tahay, madhabtaas oo madhabtiisa oo madaahibta dee muctabarka oo islaamka oo madaahibul arbaca ah saxiix bay ku noqonaysaa cibaadadiisu. laakiin dadkan hadda jira ee aan sanadka lahayn ee aan ictimaadka lahayn waxa weeye waxaas uu sheegahayaan iyo waxay idin akrinhayaan waxbaba kama jiraan. ilaahay baa qur-aankiisa noogu sheegay haweenku inay weysada jabiyaan. janaabo ma aha, janaabadii waa la soo sheegay wain kuntum junuban fataharuu baa ilaahay yidha. aayadda madaxeeda horaa lagu soo sheegay. ko haddana maxaa la israaciyey? qaybtii weysada jabinaysay. haddii qof idinka miduhu uu ka yimaado meesha saxarada ama haweenka taabtaan baa la yidhi weysaysta oo dahaaro qaata. marka waxaan dhegaysanayay nin baa la weydiiyey, waxaa la yidhi haweenku weysada ma jabiyaan? kibiga qof ilaahay abuuray ninkaas sheikh baan ahay buu leeyahay oo kollay ka been badan. anigu un weligay dhagahaygu kuma dhicin. wuxuu yidhi qur-aanka oo dhan baan ixaadeeyey, erayadaasoo isticmaalahaya cajalkiisii baa la hayaa. axaadiista oo dhan baan dusha ka yaxaadeeyey. ashcaarul carab baan tatabucay. luuqadoo dhan baan isha mariyey. luuqatulcarab weligay lamsi looga jeedo masi, waxaa lamsi looga jeeda taabasho jira, waxaan intaa kaga arkay buu yidhi ilaahay markuu qur-aanka ku yidhi muuse saamiri an taquula laamisaas. kidbi horta marka hore waxa uu sheegtay baaba kuugu filan ou leeyahay intaasaan wada mara. midda labaad ninkaas haddii hadalkiisa la raaco eeg bal inta uu jimaac ku fasiray day lamsi kastaoo intaa ku soo arooray jimaac baa looga jeedaa buu yidhi. falamasuuhu biaydiihim aayadda qur-aanka ilaahay leeyahay fajaamacuuhu biaydiihim buu ku fasiray ninkaasu. markaa aad aragto nahaa rasuulullahi sala allahu alayhi wasalam can baycil mulaamasati wuxuu ku fasiray can baycil jimaaci baa ninkaasu ku fasiray. waxaa la helayaa boqolaal aayadood iyo boqolaal xadiis oo ninkaasu waxa uu ku fasiraya waxa ay yihiin marka aad fiiriso. hadda qof waalan xitaa beenaale keliya ma ah. midda uu isagu sheegoo yidhina maba ahanba lamsiya, waa masi oo laba ficil oo kala duwan babweeye oo an taquula laa misaasa masasabay ka timid ee lamasaba ma ahanoo tii laga hadlahayay ma aha. dadka aad rabtaan in aad diin ku raacdaan ama aad ku dayataan waa dadkaas ijtihaada naftooda wixii hadba la quman afmiishaarnimo bulutuko subaxba meeshii quman ayuu rabaa inuu aado. laakiin adiga ma isleedahay nabigu wuxuu yidhi alayhi salaatu wasalaam man uftiya bigayri cilmin fa ithmu calaa man iftaahu. qofka loo fadwooda cilmi waxaan ahayn oo beena dembigeeda waxaa iskale ciddii u fadwootuu yidhi nabigu alayhi salaatu wasalaam. haddii qofkaasu wax baadiya kuu fadwoodo oo aad camal fasho isagaa dembigii lagu leeyahay. laakiin waa goorma? waa haddaan lagaa hortaagnayn, waa haddaadan ogayn. dadkaas bal hadda aad taqaaniin ee soomaali hadda culummada u noqday yay yihiin? waayo waad ogtihiin manhaj ma leh, madhab ma leh, sanad ma leh. waa dadkaas subaxba meel idiin kaxaynhaya, waa kuwa meelba idiin kaxaynhaya. inaad tidhaahdo way fiican yihiin laakiin dadka ay qarxinhayaan waa khalad ka waran. haddaad tidhaahdo dadka ay dilhayaan waa khalad laakiin waa fiican yihiin, markaad ereygaas ilaahay la hortagto maxaad u malaynaysaa? wax inkaga filan waxaa la yidhahdaa idaa aqbala alamru ishtabaha cala annaas wa idaa adbara carafahu lkayisu walaxmu. umuruhu markay yimaadaan ama arrino ay timaado
dadka way isaga darmataa baa la yidhi qof wax hore waa khayr mid wax hore war waa shar war ma nimankan qur-aanka iyo xadiidka akhrinayo khayrka mid war malaayo kalaa ku jirta laakiin idaa adbara marka ay sii dhammaan hayaan baa la yidhi ama arrintoodu dhammaato yaa carafahu lkayisu walaxmaq qofkii aqoon lahaa iyo kaan aqoon lahayn ba ay gartaan oo hadday waxaasu shar tahana shartii loo gartaa hadduu khayr ahaana khayrkii loo gartaa waxaan umaleeyahay maanta iltibaas inaanu jirin laakiin weli haddaad taagan tahay xagga waa ku fiican yahay xagga hebel waa ka baxay ma hebel waaba radiyey siyaasad la iskaga horyihin wax ma tarto laakiin asalku waxa weeye dadkaan isku manhaj ma yihiin mar hadday isku manhaj yihiin oo isku muctaqad yihiin oo manhajkooda iyo muctaqadkooda midkaan uu yahay hadda gacan samayska maalba magaca loo baxsho waa akhwaan muslimiin baa la yidhi waa itixaad baa la yidhi waa maxaakim baa la yidhi waa al-ictisaam baa la yidhi waa al-shabaab baa la yidhi waa almaxay baa la yidhi sanad walbaba walqal cusub baa loo bixiyaa siyaasaddan marba isbedelaysaa macno male laakiin waxa salka ah waa manhajka iyo muctaqadkan uu yahay mar haddii manhajkan iyo muctaqadkan qofka uu yahay inuu kanu saan wax u arko kanna saan wax u arko oo politika ah waxba jaanibkii diintii u dhimi mayso diin ahaan waa isku wada mid marka waxaas salaada maanta la tukado oo la isku cadaabay ilaa dadkan hadda waa cadaaban yihiin ciida dusheedii baa lagu cadaabay cibaadaday samaynayeen bay ku cadaaban yihiin waa salaada naagta la soo taabtay oo sawataynka la taabtay oo cagihii aan la mayrina kabtii iyo sagoska la masaxay oo markii la tukan hayana meeshii la rabo la dhaqaajiyo la waxeeyo la forsaan la yidhi oo tan la yidhi dahaaradeedii nijaaso la fiirin mahayo lugan la dhaqi mahayo naagta waxaa dhacday nin inuu la soo istaago oo yidhi haddaad xaaskaaga jimaacdo oo aan shahwa kaa imaan labadiina salaaddii baad isku xidhanaysaan waysanayn kama jabin qubaysnayn kuma waajibin haddaan shahwa kaa imaan waa arrin babliga oo meel walbaba taalla marka waxa weeye waxaas baad intaad diin ka dhigataan oo dadkaas daba joogtaan baad haddana waxaad rabtaan inaad ama wax weydiisaan ama ilaahay maxaad ka sugayn waxaasaad ka sugaysaa hadda laydinku dhaqay haddaad hadda waad aragteen waad safartaan maalin walba qur baad joogtaano waxaad arkaysaa 5 Soomaaliya mid wuxuu wataa baasabor Maraykan mid Canada wataa mid Ingiriis buu wataa mid Australia wataa shaqo iskuma lahan diyaarad bay isugu imaanayaan markii custom la soo istaaga shantoodii waa la soo cahaya maxaad wadataa iyo maxaa kaa khaldan iyo midna ma jiro horta shantoodii halkaasaa loo karintiiri markaasaa maanta hore waxaa la odhanayaa maxaad u dheer tahay maxaad u gaabanta maxaad u dheertay maxaad u gaabantay ma wax qof la weydiiyaa wax kaa khaldan ma jiro laakiin waa lagu ciqaabahaya waxa weeye waad ciqaabanta sidii ilaahay noo sheegay dadka diintooda bedasho inuu u duleeyo iyo u dulaysan yahay labadii meel joogtaa waa saas oo shantii meel joogtaa waa saas oo meeshay ku badan yihiin waa saas oo meeshay ku yar yihiin waa saas marka waxaas waa diin la'aanta laga diin dhigtay oo masiibadu ka taagan tahay war hadda intiinaan waxa laga yaabaa inaad iska roontihiin nin qof walba qof badbaadi mid walba qof dhag wax ugu sheeg hays oranina kana khalad waxana xasaab diintu axzaab maahan waa sawaab iyo baadil sawaabkuna waa kii asalka ahaa shahaado wata inuu intaas ilaa nabiyullaahi maxamed dariiqii soo jiray yaa sawaaba laakiin waxaan shalay la abuuray walaal ya sheekh Ahmed Qudubi yaa soo meel wax ka wacdinaya waxa la yiri sheekh Ahmedow saddexda tawxiid ka waran ragii sameeyaa nool maxaad iga weydiin buu yiri ha waa saas waa diin hadday tahay caqiido iyo hadday tahay cibaado iyo hadday mucaamalo dadkii sameeyaa nool adinkaana wada noolna waa laga guurhayaa haddana dhinac mid kale loo sii guurhaya markaasaa waxa weeye dadkii waa sida shariifku u sheegayo dad wada ciro leh oo odayaala yaa habka daba leh oo wuxuu leeyahay hal fiican baa la helo fudud marka waxa weeye sheekh xaaskaagu weysada waa kaa jabisaa ilaahay baa kuu sheegay inay haweenku salaada kaa jabiyaan weysada kaa jabiyaan kuwa aan jabinayn iyo kuwa jabinayana waa la kala saaray oo mahramkaagu weyse ka naagtii aan nikaax ku qaban weyse kaama jabiso laakiin naagtaan xaddu ishtaha gaarina weyse kaama jabiso laakiin naagtaan labadaas ahayn xaaska ha noqoto dumaashida ha noqoto dumaashida hadda nikaax kuma qabto haddana weysada waa kaa jabinaysaa laanna nikaaxeedu waa sababe maaha asal maaha waa intaad walaasheed qabto hooyadoo sodohdoodii kaa jabin mayso haddaad xitaa hadda gabadhaan furto weligeed ay joogto kaama jabinaysa weyse dambe laakiin midaan dumaashida waa intaad tan qabto berri waad guursanaysaa ajnabiyad bay kaa tahay dhinaca marka loo eego nikaaxeedoon baa manci kaaga qusaya xaaskaagu weysada waa gaa jabisaa salaadaad xaaskaaga intaad dhunkatay ku tukatay
ilaahay markaad hor tagto amarkiisa ilaahay wuxuu ku odhanhayaa waataanku idhi haweenka haddaad taabataan weysayste adoo weysaysan maxaad salaada iigu tukatay jawaabtaad odhanaysa adaa lagaa rabaa wallahu aclam bisawaab